السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا وعنا ونكسر لما صاحب القيمة بدنا كحنا جلنا كسبنا كستو official فضلنا دي تايمر كورس أصابع قطع جلنا سبسكرايب نوصل سو كلا قبل الكفرو سمر كستو كوسو كلام وربحنا كلا دون هكا سو كلنا هدية هولون جوكتنا مقال كنا ولا كرسو كلا سيشير كره مقال كوسو وكرا مركز صاحب بدنا إنه سو بيران جلنا كا صاحب القيمة ما برنامج كنا حكوسو قادنا فيلم كمركز لغو مقع جوان فيلم كان واحد مركز وقاميك سوبر ستار عنك شاروخ أنا فيلم كان وقاميك halka xiddigta marka lagu magacaabo superstar nayantara filimkan ee Trishok kuma taliso sidoo kale xiddigta lagu magacaabo Big Up kana filimkan special appearance ama muuqaal marti marka la fidiyay filimkan ku leedahay halka fiidiyay sidoo filimka shacab ay qaadeen la ugu badan filimka kuma taliyo saaxiibada qiimaha maanta barnaamijka waxa ku soo qaadanaa maanta filimka lagu magacaabo jawanaya maanta filimka waxa laga soo bandhigay teaser yar oo kooban oo marka lagu soo bandhigay xarakaadka marka sameynaya SRK oo marka fanka marka dib ugu soo laabtay 2018 haddana 2003 bilowga waxa soo baxay filimkiisa markaa bataan oo all time blockbuster noqday ganacsigiisana kun koror markaa ka tilaabay haddana wuxuu soo wadaa filim kale oo blockbuster oo inaba caadi ahayn filimkan waxa directorka magacaabanka lagu magacaabo Atle Kumar oo dhankaas Tamil Nadu laga dambeeyay filmo kala badan ee markaa sameeyay oo markaa kamid Terry Mersal sidoo kale filimkiisa ugu dambeeyay waxa filimka Beagle haddana 4 sano kadib uu ku soo laabanaya marka la fiiriyo dhanka agaasinka oo markaa Shahrukh Khan ay markaa dib u wada filimka lagu magacaabo jawanaya markaa agaasinkiisa marka qaatay sidoo kale filimka marka la fiiriyo teaserka kooban ee maanta laga soo bandhigay aad ayaa loo amaanay bandhigga heerka sare oo ka sameeyay Shahrukh Khan iyo laba door filimkan kuma taliyo sidoo kale xataa xiddigta lagu magacaabo Sanya Malhotra ayaa filimka kaalin adag qaatay maadaama filimka goosgoosa markaa saabeenay inaba caadan xiddigta lagu magacaabo Sanya Malhotra markaa ku soo gashay oo doorka actionka markaa qaatay sidoo kale xitaa gabadha lagu magacaabo Big Up kana filimka kaalin adag markaa ka qaadan doonta waa sida markaa shacab laga qaaday maadaama filimkan ku muuqaal martiya markaa ku leedahay ama special appearance xitaa sidoo kale fiijay sidoo filimka kaalin markaa ay ku leeyahay xitaa filimka meelaha qaarsan dhamaan talabati fiijay filimka muuqaal martiya ku leeyahay sidoo kale teaserka wax xiisa u yeelay filimkan ee qaabka loo duubay sidoo kale akshamada heerka sare filimka ku jira xitaa filimka marka la fiiriyo muusikada ninka qaracay waa Anuruud oo inaba caadi ahayn filimada marka muusikada ku qaracay xitaa filimka marka la fiiriyo dhanka meelaha lagu duubay filimka aad ayaa loo diyaariyay sidoo kale director Atle filimada uu sameeyay waa filim marka aan kuniyad jabinin marka filimka teaserada la daawanayo sidoo kale marka la fiiriyo filimkan waxyaabaha highlightkiisa marka qaybka filimkan wuxuu noqon doonaa filim kale actionkiisa marka heer sare yahay oo marka Shahrukh Khan ka soo laabanayo marka la fiiriyo dhanka actionada uu sameeyo ninka lagu magacaabo Shahrukh Khan in badan waa kaga wanaagsanaan doona sida shacab laga qaaday badan actionada marka uu ku sameeyay oo filimkan action wali ay marka sameeyay sidoo kale filimka marka la fiiriyo goosgooskiisa marka la fiiriyo saacado kooban ayuu marka yaal barta marka YouTube-ka hadda marka la fiiriyo saacado 12 saacadood filimka marka la fiiriyo YouTube-ka yaal ku dhawaad 30 milyan oo views ay filimkan hadda maraya halka marka la fiiriyo dhanka like-na filimkan wuxuu ku dhow yahay ku dhawaad 2 milyan like ayuu marka ku dhow yahay oo hadda wuxuu maraya ku dhawaad 1 milyan bar like ayuu filimka maraya taasoo ka dhigantay filimkan in saameynta in baad marka la imaaday dhanka views-ka sidoo kale marka la fiiriyo dhanka like-taba oo filimka xitaa marka la fiiriyo Tamil marka filimka laga soo bandhigay teaserka aad ay loo soo dhaweeyay ilaa 5 milyan views ay marka la fiiriyo marka la fiiriyo dhankaas Tamilka oo filimkan maraya taasoo ka dhigantay filimkan in xitaa Tamil laga soo dhaweeyay xitaa filimka marka la fiiriyo after marka lagu daawan ilaa marka la fiiriyo aad uu 2 milyan views ay marka ka sameeyay taasoo ka dhigantay filimka Telugu xitaa marka in marka filma si guud marka looga soo dhaweeyay hadii aan soo noqdo directorka marka lagu magacaabo Atle Kumar filimada uu sameeyay hadii aan ku dib ugu laabano filimkii Terry marka sanadii 2016 uu sameeyay talabati fiijay waxa filimka marka talabati fiijay marka laba door oo kala duwan marka ku matalay sidoo kale waxa uu xigay filimkii Mersal oo talabati marka 3 door oo kala duwan marka ku matalay taasoo ka dhigantay marka la fiiriyo Atle Kumar inta badan wuxuu qaataa marka sheekooyin marka isku mid ah ama qaab isku mid ah marka filimada uu sameeyo taasoo marka daawayaasha marka aad u soo jiidato marka la fiiriyo sidoo marka filimada uu sameeyo xitaa filimkiisa ugu dambeeyay Beagle marka la fiiriyo 2019 noqday blockbuster weyn noqday ganacsigiisana 250 koror ka tilaabay xitaa wuxuu talabati fiijay marka filimka marka laba door ku matalaya taasoo ka dhigantay Atle Kumar filimada wuxuu qaataa oo marka sheekooyinku marka daawayaasha marka xiisayaan haddana marka la fiiriyo jawan Shahrukh Khan xukuumadda laba door kala duwan sidoo kale marka la fiiriyo filimkan muusikada u qaracay Anuruud filimkan aad ayaa looga helay oo marka background muusikada filimkan oo la qaraacayo oo marka hadii aan isku soo waduubno filimkan waa filim marka classic filimkan waxa la daawan doonaa 7 bisha September lagu soo foodale oo filimka almost 2 bilood filimka ka dhiman daawashadiisa sidoo kale filimka dhawaana waxa la soo bandhigi doonaa filimkan heeso kala kacsan iyo sidoo kale filimka trailerkiisa buuxa ilaa 3 daqiiqo bar filimka u badan tahay in marka filimka trailerkiisa laga soo bandhigi doono waxna u badan tahay filimka dabyaqada marka la fiiriyo bisha Agosto ama 20 ilaa 18 filimka laga soo bandhigi doono trailerkiisa
dhammaystiran. kadibna filimkan waxa uu wixii doona promotion ama xaysiin marka loo sameeyo ilaa marka laga gaaro 7 September si filimkan hadalhayntiisa marka cirka sare u gasho. hubantaana wuxuu noqon doonaa blockbuster weyn oo kale marka sanadka 2023 marka SRK la imaan doona. sidoo kale xidigan waxa uu diyaarsan filimkiisa marka lagu magacaabo Danki oo marka shaaca laga qaado daawan doono December 2023 balse filimka waxa uu baantay marka la baajin doono oo sanadka cusub ee 2024 filimka dib loo dhigi doono maadaama bisha 9 soo bixi doono filimka marka lagu magacaabo Jawan oo marka hadii marka la fiiriyo Danki uu soo bixi doono si December taasoo ka dhiganta 3 bilood kadib in marka filimka Danki soo bixi doono. sidoo kale filimka wali marka shaqo ay u socota. sidoo kale filimka marka la fiiriyo Jawan waxa maalgeliyay shirkadda lagu magacaabo Rajil Entertainment ee marka madax u tahay Gori Khan. sidoo kale filimka Jawan waxa aad loo amaanay aalada VFX filimka sida loogu tayay iyo qaabka filimkan loo edit gareeyay. sidoo kale filimkan waa filim kale oo SRK marka uu ku soo laabanayo comeback weyn marka uu ku sameynayo si shaaca laga qaadana filimkan wuxuu noqon doonaa filim kale oo blockbuster oo marka sanadka 2023 loo diiwaan gelin doono SRK. saaxiibada qiinta ka cusub filimka marka lagu magacaabo Jawan oo maanta laga soo bandhigay teaser kale xiisab badan kaasoo marka filimka si holac markaas teaserka aad loo wada amaanayo. wixii ka soo korana filimkan waxaan ku soo gudbin doonaa muuqaaladan xiga. saaxiibada qiimaha baadiyan inta kaga soo tagna filimka marka lagu magacaabo Jawan oo aan ku soo qaadanaa filimka qaybihii hore barnaamijka. haddana waxaan soo qaadanaa filimka marka lagu magacaabo Satya Premka Katha. filimkan waxa hogaamiyalka xigta eediga lagu magacaabo Kartik Aaryan sidoo kale gabadha lagu magacaabo Kiara Advani oo marka labaad shaashada marka dib ugu midoobay iyo filimkoodii Bulbulaya 2 oo la daawado horaantii sanadkii 2020 filimka waxa filim kale oo blockbuster oo 200 karo filimka ka tilaabay. haddana film kale xiiso badan Satya Premka Katha filimkan wuxuu soo baxay 29 June ayaa filimka teatarada saaray ku dhawaad 12 casho filimkan masrax saaray. sidoo kale filimka marka la fiiriyo asbuuciisa koowaad filimka si wanaagsan marka isku celiyay oo ganacsi wanaagsan marka filimka asbuuciisa koowaad marka sameeyay. marka la fiiriyo filimka asbuuciisa koowaad wuxuu keenay ku dhawaad 53 karo filimka marka asbuuciisa koowaad keenay taasoo ka dhiganta filimkan asbuuciisa koowaad ganacsi fiican marka sameeyay. lacagta marka dolahan loo fiiriyo 53 karo waxay gaaraysaa ku dhawaad 6 milyan $6 Mareykanka ayuu filimka asbuuciisa koowaad soo xareeyay. halka marka la fiiriyo asbuuciisa labaad filimkan hoos dhacma weyn marka sameeyay 3 samaal ugu horeysay Jimcaha Sabti Axad oo filimkan 66% ayuu filimkan hoos dhac sameeyay oo wuxuu keenay ku dhawaad 12 karoor ilaa 13 karoor filimka marka la fiiriyo asbuuciisa 3 samaal ugu horeysay keenay. halka marka la fiiriyo asbuuciisa hore marka la fiiriyo 3 samaal ugu horeysay wuxuu ka tilaabay 30 karoor marka taas ay ka dhigantay filimkan asbuuciisa labaad kaawis xoog leh marka sameeyay. halka marka la fiiriyo filimka suuqyada caalamka filimkan si wanaagsan marka isku celiyay oo hadda wuxuu marayaa ku dhawaad 22 karoor ayuu filimka suuqyada caalamka soo xareeyay taasoo ka dhigtay filimka suuqyada caalamka inuu marka ku wanaagsan yahay. sidoo kale marka la fiiriyo gudaha Hindiya filimka lacagta netka ama neta montika filimka ku soo xareeyay waxa gaaraysa ku dhawaad 66 karoor. halka marka la fiiriyo ganacsigiisa guud dibadda hadda filimka wuxuu marayaa ku dhawaad 99 karoor ayuu filimka hadda ka tilaabay. maalmaha maato sniina filimka ganacsi walba uu sameeyo filimka 100 karoor marka ka tilaabi doona. filimka marka la fiiriyo gudaha Hindiya marka la fiiriyo 75 karoor haddii filimka noqon gaaro wuxuu noqon doonaa filim marka average. haddii uu 85 karoor filimka gaaro wuxuu noqon doonaa filim marka hit dhameystiran taasna marka filimka waxa ka xigta ku dhawaad 20 karoor hubantaana filimkan oo gaari doona maadaama marka la fiiriyo ilaa 20 July oo marka filimka Rocky oo Rani Premka Kani ka hor in filim marka soo bixi dooneen oo marka filimka Power marka OTT lagu soo fatixi doono 22 July oo kaliya. marka la fiiriyo 2 marka filimka ka harsan Rocky oo Rani Premka Kani intaas ay filimka lagu magacaabo Satya Premka Katha masraxa marka sii saarnaanaya. hubantaana filimka wuxuu noqon doonaa filim marka kale u guuleystay xidiga lagu magacaabo Kartik Aaryan oo marka filimkiisa ugu dambeeyay marka Shehzada oo marka ka noqday filim marka falooba marka actorkan guulihiisa lixaad kale marka filimkan ku soo ceshanaya. saaxiibada qoynta say ku cusub ganacsiga filimka marka maanta ku soo qaadanaya filimka lagu magacaabo Satya Premka Katha oo marka ganacsigiisa 100 karoor marka ku dhow. fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka noo leeyahay sidoo kale sii share garee wana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.